السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتحانيه سوماليدا وين حلقديسي أفراد muuqaalkeenna insha Allah waxaynu ku eegaynaa gumaysigii dhulkii Soomaalida weyn. sanadkii 1498 waxaa soo gaaray badweynta Hindiya 3 doomood oo Boortaqiis ahaa oo uu watay Vasco da Gama oo ku jiray safarkiisii caanka ahaa ee uu ku sahaminayay Hindiya uuna ku helay Cape Town ama marinkii rajada wanaagsan ee Koonfur Afrika. sida aynu hore u soo xusnayna waxa ka soo dibadegay Christopher da Gama oo ahaa walaalkii oo watay 400 oo askari sanadkii 1541 isaga oo ka soo galay Afrika marinka Masuuc ee Eritrea una gargaarayay boqortooyadii Kristaanka ahayd ee Xabashida oo ka celinayay duulaankii muslimiinta ee Axmed Gurey hogaaminayay. iyagana waxa ka daba yimid khilaafadii Islaamka ee Cusmaaniyadda. aagiina waxa uu noqday aag loolan iyo hirdanka oogan yahay oo dhan waxa ka hirdamayay ciidanka Crusaders ama macatibley ah iyo ciidankii Islaamiga ahaa ee khilaafada. dhanka kalena loolan gudaha ayaa jiray oo ka dhaxeeyay dawladii Cumaaniyiinta ee markaa dhalatay iyo qabiiladii Soomaalida oo wada jira oo la hirdamayay dawladii guunka ahayd ee Xabashida. loolanadaas oo dhami waxay dhaliyeen soo ifbaxa awood cusub oo ka talisa deegaankaas qarnigii 19aad waana dawladii Maxamed Cali Baasha ee Masaarida ahayd waxaana ay ugu culeynaysay inay midayso inta uu Niilku maro. dawladda Masarna ay u samayso xuduud dabiici ah oo aan dad samee ahayn. si xadkaas looga dhabeeyana waxa waajib ahayd in la qabsado meelaha uu ka soo rugmado webiga Niil, xeebaha Badda Cas iyo Khaliijka Cadmeed oo laga dhigo hal dawlad oo hal dallad wada harsata. xilligii uu Khadiiwi Ismaaciilkii Masar ugu culeynayay inuu fuliyo mashruucaasina waxa uu ahaa xilli uu ololeynayay inuu ka go'o khilaafadii Cusmaaniyadda wayna ku guuleysatay Masar madax banaanidaas. waxaana loogu saxeexay amarkii soo fulay 28kii May 1866. laga soo bilaabo waayahaasna waxa ay Masar waday istiraatiijiyadeedii ay ku mideynaysay aagagaas oo dhan waxaana ay ka bilowday howlgalkeeda inay gacanta ku dhigto dekedda Berbera. sanadkii 1896kiina waxa la furay oo xariga laga jaray kanaalka Suez. furitaankaasina waxa uu sii kordhiyay doorkii iyo kaalintii ay ku jireen xeebaha bariga Afrika. dhan kalena waxa uu gaatamayay gumaysiga iyo qabsashada deegaanada Soomaalida Ingiriiska ilaa iyo waayihii uu qabsaday Cadan 1839 oo faqirnimada Cadan iyo wax soo saar yaraanteeda beero iyo xayawaan bale ayaa dhaliyay inay kaafiyi weydo baahidii doomaha Ingiriiska ee Hindiya isaga gooshaya iyo ciidankii Ingiriiska ee deganaa arladaasba. waxa uu Ingiriisku markaas dantiisa ka dhex arkay in uu qabsado xeebaha Soomaalida si uu ciidankiisa ugaga helo hilib iyo cunno ku filan, doomihiisuna ay uga qaataan saad iyo sahay ku filan. waxaana uu Ingiriis bilaabay inuu loolan la galo masaaridii haysatay dhulkaas oo uu faragelin ku sameeyo Berbere iyo Saylac uuna jidka u sii saxartiro taliskiisa iyo in uu dhulkaas isagu ka arrimiyo. Faransiiskuna waxa uu faragelinihiisii ka bilaabay deegaanada Obokh ee Djibouti waxaana uu markaas saami ka helay safiirkii Faransiiska ee Cadmeed deegaanka Danaakisha ama Canfarta sanadkii 1859. intaasna waxa sii raacday inuu Faransiisku ka gatay dekadiiba odayaashii Danaakisha ama Canfarta uuna ka qotomiyay calankii Faransiiska, balse inuu gacanta toos ugu dhigo oo qabsado waxa uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay kanaalka Suez. waxaana la aasaasay shirkad ganacsiyeedii Faransiiska iyo Xabashida sanadkii 1881. Talyaaniguna waxa uu bustaha dhigtay oo ka gatay odayadii Danaakisha ama Canfarta dekadii Casab sanadkii 1869. waxaana uu kala gaday oo uu kala dilaalay diinfaafiyihii Talyaaniga ahaa ee Giuseppe Sabeto oo ka howlgelayay Ethiopia. Charles Gordon oo ahaa barsaabkii Suudaan ayaa isaguna u soo jeediyay Khadiiwigii Masar dib u abaabulista fikradii ahayd in Masar loo sameeyo xuduudo dabiici ah. waxaana uu markaa ka irsugtay in jidka ugu dhow ee Suudaan uu gurmad ka soo geli karaa uu yahay xeebaha bariga Afrika oo aanu Masar u soo marayn. waxaana la oogay duulaan ay Masaariyi wado si Ingiriis hogaaminayo oo la damacsanaa in lagu qabsado Barawe iyo Kismaayo. xilligaasna Menelikii labaad oo ahaa boqorkii Shawa ayaa Masaarida heshiis kula galay in ay qaataan waqooyiga Ethiopia si ay la qabtaan oo ugu gargaaraan dagaalka uu la gelayo boqorkii Yohanihii afraad ee Xabashida. inkasta oo duulaankaas isbahaysiga ahi uu jabay haddana Masaaridu waxa ay dhambaleen jid ay ku qabsadeen Herer iyaga oo u diray ciidan gaar ah oo uu watay Rauf Baasha. halkaas haddii uu xaalku marayo
ayay ingiriisku masar lafteedii qabsadeenba. danihii masaarida iyo kuwa ingiriiskuna saameyn isdiiditaan ah iskuma ay yeelan oo masar lafteediiba ingiriis ayaa ka talinayay. maamulkii gumaysiga ingiriiska ee masarna waxa uu heshiis kula galay sanadkii 1877 inay sharci u haystaan masaaridu inay gacanta kusii hayaan oo sii joogaan deegaanada xeebaha Soomaaliyeed ee ay haysteen oo ahayd inta ka dhexle berbera ilaa raas xaafuun. intii ay masaaridu Soomaaliya haysteenna waxay dhiirigeliyeen oo kobciyeen ku dhaqanka iyo aqoonta diinta islaamka. tiro aan yareyn oo masaajido ahna way dhiseen. awoodihii reer Yurub waxa ay u arkayeen Geeska Afrika inay tahay isha rasmiga ee webiga Niil. sidaa awgeed markii uu dilaacay kacdoonkii Imaam Maxamed Axmed Al-Mahdi ee Suudaan oo gaarsiisnaa ilaa Itoobiya iyo Soomaaliya, waxa ay reer Yurub bedeleen gebi ahaanba istiraatiijiyadii iyo qorshihii ay u qoondeeyeen Geeska Afrika. waxa isaguna markaa dilaacay kacdoonkii Curaabi Baasha ee Masar 1882 taas oo sababtay inay ciidamadii Ingiriisku qabsadaan kanaalkii Suez. waxaana Ingiriisku uu Eritrea u gacan geliyay Talyaani si aanay ugu dhicin gacanta Mahdiga iyo gacanta Faransiiska midkoodna. Talyaaniguna waxa uu ku dhawaaqay in Eritrea ay tahay maxmiyadiisa uu isagu gumaysto sanadkii 1885. Ingiriiskuna waxa uu ku cadaadiyay inay masaaridu ka soo baxaan deegaanadii Herer, Seylac iyo Berbera ee ay gacanta ku hayeen. waxaana uu markan Ingiriis qorsheynayay kaartadii uu ku buuxin lahaa ee ku hanan lahaa deegaanadaas ay masaaridu ka baxayaan. waxa uu sidoo kale Talyaani cagaha ku hubsaday koonfurta Soomaaliyeed isagoo ka faa'iideysanaya fursad ah inay u yimaadeen ergo uu wato Yuusuf Cali Suldaan Obiya oo ka soo doolay waqooyiga bari ee Soomaaliya. waxaana ay ugu yimaadeen caasimadda Tanzania ee Dar es Salaam 12 Disembar 1888. waxaana ay ka doonayeen inuu gacanta ku dhigo oo uu guudka ka ilaaliyo deegaankooda iyaga oo ka hoosgelaya cadaadiskii Suldaankii Sinjibaar oo ay safgaran waayeen. hogaamiyihii Talyaaniga ee Filonardina fursadaas dahabiga ah ee uu dhulka Soomaalida ku helayo ee ay waliba iyagu ugu yeedheen ma uu dayicin. waxaana uu amar degdeg siiyay wasiirkii ciidanbadeedka ee Crispi inuu dhaqaajiyo maraakiibtii dagaalka Talyaaniga. 8 February 1889 ayuuna Yuusuf Cali dalkiisii si rasmi ah ugu gacan geliyay Talyaani. u gacan gelintaas iyo ilaalo u doonashadaasina waxa ay isku bedeshay gumaysi toosa ilaa dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunidana. culayska gumaysigaas ayuu geyiga Soomaaliyeed la circiirayay. markii la soo gaaray sanadkii 1950 ilaa 60kiina waxa uu Talyaanigu koonfurta Soomaaliyeed ku hayay dardaaran ay ugu sii jidaysay qaramada midoobay. sidoo kale waxa uu Talyaanigu isku balaadhiyay dhulka Soomaalida markii uu la galay heshiiskii la magac baxay Oksiyaali ee ka koobnaa 20 xeer boqorkii Menelik ee Xabashida 24 May 1889. qodobka 17aad ee heshiiskaasina waxa uu dhigayay in xidhiidhada ay la sameynayaan Xabashidu dawladaha kale ay u sii marayaan. waxaana ay Talyaanigu ku horeen oo siiyeen boqorkaas gaashaanbuurta la noqday ee Menelik labaad hub iyo saanad. waana hubka markii ay isqabteen ay Xabashidu xiniyaha ku jareen Talyaaniga. dagaalkii Cadwa oo boorantii hadimo ee uu qodayay ayuu ku dhacay Talyaani. Faransiisku dhankiisa waxa uu u xil saaray dib u cusboonaysiinta iyo dirdirgelinta heshiiskii uu la galay duqeyda Ciisaha iyo Canfarta ee deegaankooda Obokhdaarana Leonslagrad. waxaana uu si walba isugu taxalujiyay Faransiisku sidii uu si buuxda lugaha ugula geli lahaa Djibouti oo waxa uu u arkayay xarunta uu uga gooshi karo Shiinaha iyo Madagascar iyo sidoo kale xudunta ay doomihiisu ka kororsanayaan ee ka qaadanayaan dhuxul dhagaxda ay shidaalsanayaan. 22 Sebtembar 1884kiina waxa uu heshiis kula galay Lagrad Suldaankii Tajoora inuu si rasmi ah dalkiisa ugu gacan geliyo Faransiiska. kadibna si buuxda ayuu dalkii uga caydhiyay masaaridii. sanadkii 1888 waxa dhacay heshiiskii Ingiriiska iyo Faransiiska ee xalka ay ugu raadinayeen loolanka iyaga ka dhaxeeya ee ay ku hirdamayeen cidda ka arriminaysa jiida Canfarta iyo Ciisaha. aakhirkiina waxa ay isku afgarteen jiida iminka loo yaqaano Djibouti inuu gacanta ku hayo Faransiisku. dhulka Soomaalida ee cadan ku waajahan iyo deegaanada kale ee Ciisaha iyo Canfartana inuu Ingiriis gacanta ku hayo. labadaas gumaystana waxa ay isku afgarteen inaanay faragashan arrimaha Herer iyaga oo haddana ay labaduba ku adkeysanayeen in aanu midkoodna ka tanaasulin maamulidda iyo gacan ku dhigista aaggaas Herer oo uu mid waliba doonayay inuu dawladaha kale oo dhan ka xigtaysto. balse go'aankaas way ka qoomameeyeen oo farta ayay dhexda ka qaniineen labadaas gumaystaba markii ay arkeen Menelik labaad ee Xabashida
oo herar iyo dadkeediiba addoonsanaya oo ku amartaaglaynaya oo sida uu doonaba ka yeelaya. haddaba bal aynu isla yara eegno sidii uu minilkh herar u gumaystay. waxaa sanka lagaga tolay ilaaladii masaarida ahayd ee deegaanka herar inay ka baxaan oo ku wareejiyaan maamulka ingiriiska sanadkii 1885 waxaana herar loo dhiibay amiir cabdilaahi cali ibnu maxamed cabdishakuur. waxaana markaas wadnaha farta ku hayay oo saadaal xuni u muuqatay dadkii herar iyo ganacsatadoodii, waxaana ay dhaadanaayeen inay waayuhu ula soo giblan yihiin haliso aan dhaya lahayn. sidii ay filayeen ayayna wax u dhaceen oo ilaaladii masaarida ahaa markii ay ka baxeen ayaaba lasoo sahamiyey herar oo la arkay ilaalo talyaani ah iyo kuwo ingiriisa oo gacmadeeda sahaminaya. waxaana diiqad iyo cidhiirtoon ka dareemay arrinkaas amiirkii herar ee cabdishakuur, waxaana uu ahaa nin u damqada diinta iyo ummadda. sirdoonkaas ilaalada ahina waxa ay ku kalifeen inta uu qabto inuu laayo, isaga oo warkaya inay shar iyo balaayo uun la soo giblan yihiin. halkaasna waxaa fursad dahabi ah ka helay minilkh xabashida, waxaana uu reer yurub uga soo dheereeyey herar isagoo ciidankiisii oo dhan wata. waxaana uu isi soo taagay herar isagoo ku andacoonaya inuu u aarayo dilka askartii kiristanka ahayd. dagaalkii burka iyo biyaha loogu kala miirmayna waxa uu ka dhacay herar 7 January 1887. libintuna waxa ay goobtaas ku raacday colkii cadaawaha ee xabashida oo uu garwadeen ka ahaa raas makooniin oo ahaa boqorkii xayle salaase aabihii. amiirkii cabdishakuur iyo xertiisii ku gidaanaydna waxa ay u firdhadeen jiidda ogaadeenka. inkasta oo uu boqor minilkh ka mamnuucay ciidankiisa inay bililiqaystaan magaalada herar, haddana markii dambe wuu u fasaxay. waxaana herar galay col ay hayso hamad aargoosi iyo cadaawadeed oo muddo dheer ciilanaa. waxaana galay nacab soo jireen taariikheed iyo saamayn diimeedba ay sanka u saareen herar oo maalintaasi inay dhacdo muddo dheer u oomanaa oo sugayey. waxa ay bililiqaysteen oo cagta mariyeen 99 masjid. masjidkii weynaa ee ay masaaridu dhiseenna waxa uu u bedelay kaniisad weyn, ilaa haddana waxa uu ku agyaallaa isaga oo kaniisad ah masjidka weyn ee herar. minilkhna waxa uu dhambaal bushaareyna u diray barsaabkii ingiriiska ee cadan, isaga oo ku leh amiirkii firdhaday ee anjabiyey ee cabdishakuur waa tafiirtii axmed guray ibraahim. jabkiisaasina waa guul weyn oo u soo hoyatay kiristanka. dumitaanka herar iyo bililiqaysigeedu waxa uu ku reebay nabar oo foreena iyo naxdin aanay ka soo kabanayn muslimiinta, xabashida iyo kuwii kale ee Itoobiya deganaaba, iyo sidoo kale qabiiladii Soomaaliyeed. dumitaankii herar waxa uu saameyn dhinacyo badan oo dhan siyaasadeed, dhan dhaqaale iyo dhan dowladeedba ah ku yeeshay habmaamulkii Afrika iyo kii gumaystayaashaba. cid kasta oo wax ka qortay herarna hal dabola ayay isugu raacday saameyntaas baani ay dabayaaqadii qarnigii 19aad dumitaanka herar iyo dhicitaankeedu sababay. ay sababtu tahay waxa ay ahayd herar muddo 4 qarni ah xarunta aqoonta iyo ilbaxnimada ee soo saarta aqoon-yahanada iyo indheergaradka islaamka ah ee bariga Afrika oo dhan. dumitaankeedaas wixii ka dambeeyeyna muslimiintii bariga Afrika aayahoodu waxa uu galay mugdi iyo quus, cadowgooda oo ay u nuglaadeenna way ka qaadeen. waxa uu horseeday dumitaankii herar inuu dhulkii Soomaaliyeed gacanta u galo qarnigii 20aad siyaasadda reer Yurub iyo siyaasadda xabashida kiristanka ah. waxa uu geyigii Soomaaliyeed ku dhex dhacay 4 goos oo kiristana oo isu celinaya oo kala ah ingiriiskii waqooyi qabsaday, faransiiskii Djibouti qabsaday, talyaanigii koonfur qabsaday iyo xabashigii herar qabsaday. dumitaankaas herar waxa uu soo afmeeray jiritaanka imaarado iyo saldanado islaami ah oo dib dambe uga dhasha uganahana qaada aagga bariga Afrikaba. waxa uu wiiqay siyaasadii iyo habmaamulkii Soomaalida oo dhan. waxa sidoo kale hoos u dhacay oo in la waayaba ku sigtay aqoontii iyo tacliintii ay culimadu herar ka soo baran jireen, oo waayo jahli iyo aqoon darro ah ayay dadkii Soomaaliyeed galeen. waxaana soo afmeermay ka talintii uu islaamku ka arriminayay deegaanka bariga Afrika oo dhan. inahaas ayaynu ku soo afmeeraynaa xalqadeennan. wassalaamu calaykum.